waa taliyaha qaybta 21aad ee ciidanka xoogga dalka Generaal Maxamed Cadow Cali Sanka. Waxaa isaga iyo saraakiil kale oo uu ka mid yahay xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 21aad oo kormeer ku tagay xerooyin iyo fariisimo ay ku leeyihiin degmada Cadaado. Ciidamada xoogga dalka waxay u sheegeen ciidamada kadib kormeerkooda inay markaa ka shaqeeyaan sugidda amniga iyo la dagaalanka Al-Shabaab. Ugu horeyn, taliyaha qaybta 21aad ee ciidanka xoogga dalka Generaal Maxamed Cadow Cali Sanka waxa ciidamada uu sheegay inay u diyaar garoobaan howlgallada looga xoreynayo Galmudug, gaar ahaan deegaanada ku dhow gobolka Galgaduud Al-Shabaab, isaga oo sidoo kale ugu baaqay inay markaa foojignaan dheeraad ah galaan oo ay ka shaqeeyaan ammaanka. inaan Cadaado nimaadno oo meel runtii weyn ah aasaaskii qaybta 21aadna taariikh weyn ka galayso, waxay qayb ka tahay inaan aragno ciidanka iyo shaqada socoto ee dagaalka furmaha hore ka socdo iyo xogaha laga heli karo ee madaxda, si runtii warbixinadana aan ula qaybsanno wixii waajibaad oo loo baahan yahayna madaxda aan u farno. waxa ciidanka uu ku nool yahay iyo meesha ciidanka uu ku nool yahay iyo taliska ciidanka uu joogo, shaqooyinka ka socdana inaan qaybayn ku samayno. Dhankiisa waxaa ciidamada la hadlay xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 21aad gaashaanle sare Cabdullaahi Maxamed Muuse Keese. Waxa uu markaa kula dardaarmay saraakiisha ciidamada ku sugan xerooyinka ay booqdeen inay markaa si wanaagsan ula shaqeeyaan shacabka iyo ciidanka xilliyada dagaalka. saraakiisha waxaan leeyahay ciidanka si cadaalad ula dhaqmo, ninka xaq leh xaqiisa ha qarinina, ninka dalcaad leh, ninka darajo leh, ninka u baahan fasax, ninka xanuunsan ha qarinina, ninka xunna ha qarinina. askarta cadaalad ha loo sameeyo, kan xun iyo kan fiican ha la kala saaro, yaa intaba yaan la isu dhex qaldin. teeda kale guula idin rajeynayaa, caafimaad baan idin rajeynayaa, bil rabadaanna waa soo socotaa. yaa hal leys cafiyo, caloosha la isku furo, si fiican difaaca iyo qayrka nagu soo socdo si aan u gudano, aan gacmaha isqabsano. Sidoo kale ciidamo dheeraad ah ayaa maanta waxaa la geeyey deegaanka Ceeldheer ee gobolka Galgaduud, kuwaas oo markaa lagu xoojinayo ciidankii hore u joogay. Waxaa loo geeyey sababo la xiriira kadib markii deegaankaas ay ku soo bateen aasidda miinooyinka oo ay markaa khatar weyn ugu jireen ciidanka iyo mas'uuliyiinta halkaasi ku socdaalaya. Al-Shabaab ayaa la tilmaamayaa in dhowr jeer oo hore deegaankaas ay weeraro dhinaca miinooyinka ay ka geysteen. Maxamed Yaxya Jino, warbaahinta Nation, Muqdisho.